saxaafadeed ay iskugu yimaadeen odayaal waxgarad dhalinyaro haween aqoon-yahano ganacsato culimo u diin ka soo jeeda beesha baadacadda magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan ayaa waxa ay sheegeen inay xiriirka u jiraan maamulka Hirshabeelle kadib markii ay ka waayeen xuquuqda ay ku lahaayeen sida ay hadalka u dhigeen ayagoona dhanka kala baaq u diray xildhibaanada ku metela maamulka Hirshabeelle inay guud ahaan iskaga soo baxaan. Hirshabeelle waxaan ku cabaaraynaynaa in xuquuqdii Hiiraan ay dhumisay oo cadaalad falin oo mintaqaana beela khaas ah ay mintaqaana sadbursi siisay sidaas aaweed baash baad waxay go'aan ku gaartay in Hirshabeelle bil kulli ma ay qaadacday waxay la shaqay dooneen ay taageero dooneen xildhibaanada oo baash baad waxaan ku baaqaynaa inay mintaqaana Hirshabeelle qaadacaan oo ay mintaqaana ka tanasulaan oo ay wada gurihiisa iska xaadiro marka geed dheer iyo geed gaaban waxaan u fuuleynaa inaan xuquuqdeena si kartile oo raganimo leh oo la yaqaan aan ku raasano waxaan u sheegayaa xildhibaanada Hirshabeelle ee anaga namatalo inay ka baxaan baarlamaanka Hirshabeelle wax ay noo qabteen iyo wax ay awoodaan midna male Hirshabeelle in isaga baxaan xuquuqdeena hadaysan keeni karin barnaamijka ay u baxaan shacabka beesha baadacadda dhamaantood qaybaha ay ka kooban yihiin oo dhan waxay isku raaceen in maamul goboleedka Hirshabeelle la qaado maamul goboleed gacan ku rimis uu yahay waxaan marka baaq u dirayaa xildhibaanada Hirshabeelle ee beesha baadacadda ee ku jiifo sariirta aan joodari aan lahayn ku jiifo ha iskiga tagaan meesha haddii ay ogaa kareen baahida ka jirta deegaanka iyo dalka iyo dadka iyagu gooniga ah maadaama iyaga soo doorteen haddiise ay raadiyaan labadii 4 sano 2 sano lacagtii hore ka baxday ay raadiyaan 2 sano dambana ay goobaan lacagtii ay ku imaan doonaan dadkoodii iyagu waa kala dhinteen waa isma haayeen waa qaadacnay cod dheerana ku qaadacnay magaalo madaxdaana deganahay oo baadacadda laga xukumo hadday dadka ay moodeen Hirshabeelle hadday moodeen magaalada Beledweyne inay ku tumato baadacadda burburti jalaqsi bas ay degan tahay leediin waad arki doontiin 33 dhacdo oo magaalo madaxda gobolka Hiiraan oo heer gobol ah oo dambi ah oo nagal galaya noo qoran xildhibaanada qaasatan waa kala noqonaynaa codki hadii ay ka bixi waayaan oo magaalo madaxda beesha baadacadda degan codkooda ay raaci waayaan oo ay ku adkaystaan gabdhan u dirayna waana laga tumaa meesha laga tumaa xafiisyada Hirshabeelle garac looga bixina qorada meesha joogto Hirshabeelle sheeganayso banaanka imada soo baxa baaqa baadacadda yeelo saacada waxay ka bilaabato anaga meesha looma joogtiin ugu dambeyn beeshan ayaa soo saartay war saxaafadeed ayadoona uu saxaafada u akhriyay Suldaan Shaafici Xasan Guray maamulka Hirshabeelle duudsiyay kuraastii ay xaq u lahayd beesha baadacadda waxa kamid ah sida gudoomiyaha gobolka Hiiraan ku xigeenka koobaad taliyaasha ciidamada xubnaha kale ee muhiimka u ah ee beesha oo xaq u leh sidaas darteed waxaan u sheegaynaa madaxda dawladda federaalka mas'uuliyiinta maamulka Hirshabeelle iyo beesha caalamka amisom inaan wax wada shaqayn ah la yeelan doonin Hirshabeelle waxaan halkaan baaq ugu dirayaa xildhibaanada heer federaal iyo heer dawlad goboleed beesha ku matalayay siyaasadda inay ku fashilmeen waajibaadkii loo xil saaray sidaas darteed waxaan faraynaa inay 48 saacadood gudahood ugu soo jawaabaan cabashada beesha ay jeedisay dhinaca kale Higgs Youth United oo ah dhalinyaro siyaasadeed oo beesha ka soo jeeda isla markaana ku nool intooda badan qurbaha ayaa soo dhaweeyay mowqifka ay beeshooda qaadatay Cabdishakuur Maxamed Xasan Zab TV Beledweyne adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo Dahab casriyeynta hanaanka cusub ee xawilaadda Dahabshiil haddaba macmil adeegan cusub ee casriga ah waxa uu ku sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga hoose goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida